أستاذ waxaan weydiin waxyaabaha qofka guusha u horseeda maxaa ka mid ah aad ma tahay waxyaabaha qofka guusha u horseedi kara waxaa ka mid ah in uu qofku is-aamino inaad aaminaad lahaato aaminaadoo sax ah inaad aaminsan tahay nafsadaada marka hore waayo haddaad aaminsan waxa ma qaban karto aaminaadu waa shidaalka keliya ee qofku wax weeyaan ku dhaqan karto qodobka labaad waxaa ka mid ah waxa weeyaan fikirka inaad waxa weeyaan aad bedeshid qaabka aad fikraysid haddii noloshaada waxyaalo badan oo ay kaa khaldameen inaad waxa aaminsan tahay inaad sixi karto sax waayo waxa weeyaan haddii aad fikirkeenu ka shaqeyn waxa weeyaan kama shaqeyn karno inaynu isbedel qodobka saddexaad waxa weeyaan inaad la saaxiibto dad wanaagsan dad aad wax ka faa'iidi karto dad waxa weeyaan kula fikra dad waxa weeyaan dhimaantay hadaf haddaad leedahay dhihi kara hadafkaada gumaysan kartaa ama dhiirigelin qodobka afraad waxa weeyaan xaqiska inaad isbedid la saaxiibtid inaad waxa weeyaan aad xaqiska aad daraysa inaad inta badan aad xaqis waa mar walba xaqiso waa mar walba waxa weeyaan fahamkaagu usii kordho mar walba waxa weeyaan ujeedada nolosha kale ay sii balacato ما شاء الله waxaa rajeynayaa ustaadka ka faa'iidaysatay ma rajeynayaa